tani waxay ahayd diyaarad siday rakaabkii ugu cuslaa ee waayahan soo cagadhigata eeraboorka aadan cadde. cashe qaran iyo caways qabka soomaalinimadu talisa ay ahayd 22kii bishiina dhaaftay ee Juulaay, kolkaas oo ay Muqdisho soo gaartay dayuurad siday dhalinyaro Soomaaliyeed oo xukuumadda Soomaaliya ka soo siideysay xabsiyada Itoobiya. dhab uma ekeen dhalanteed iyo been la dhoodhoobay ay ula muuqatay dad badan kolkii ay soo dhacday jabaqda ku qotanta in dhalinyaro Soomaaliyeed laga soo siideynayo xabsiyada Itoobiya. waayahan balama arag maxaabiis dalka lagu soo celiyo muhaajiriinka siyaaca mooye. balse dhawaq deeqay dhagaha Soomaalida iyo muuqaal laayaha roon ay ahayd dhacdadani u dhabaxartay inay dhalato rajo qaranka Soomaaliyeed xabsiyada dunida uga baadi doono Soomaali badan oo jeelal jiifa ah. maalin mashquul badan ayay u ahayd dharaarta gegida aadan cadde. madax iyo shacab aan tiro yarayn ayaa saacado badan taagnaa gudaha iyo daafaha garoonka iyagoo sugayay soo dhaweynta wiilashan libaaxyada ahaa ee waqti u kaliminsiiyey jiirka. inkastoo dal shisheeye lagu ciilay dhalinyaradan oo ay maxaabiis ku ahaayeen muddo aad u badan, haddana sidii madaxdii oo kale ayaa loogu soo dhaweeyay dhulkooda. waa rag dhiilla qabay oo ay ku dheertahay xiisaha dhulkooda. qaar baa dhunkasho iyo sujuud la dhacay kolkii ay soo caga dhigteen ciidoodii hooye ee sanadaha badani ka callaqnaayeen. iyadoo awal aynan macaanayn nolosha xabsiyada ayaa haddana waxaa u sii dheeraa dhalinyaradani inay ku hoos jireen jeelal ee maamusho mid ka mid a dalalka ugu xukunka adaga Afrika ee aan dhowrin xuquuqda insaanka oo ah Itoobiya. tiradoodan waa 114 ayagoo lagu kala xukumay yani xabsiyo kala duwan qaarkood ay ku xukunaayeen 20 sanadood. marka saadaradeed ilaahay mahadii waxa keenay soo dhawaanshaha xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Itoobiya iyo ay galiyeen juhdi fara badan madaxda Soomaaliyeed si xiriirka uu u gaaro dhab u noqdo u taabaqaado. lagana wada hadlay in muxuu ahaa dadka maxaabiista oo meesha ku xirnaa la soo sii daayo. waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa marka hore mahad Ilaahay baa iska leh dawladdeena Soomaaliyeed oo gelisay waqti iyo muxuu ahaa wax walba gelisay in ay arrintan maanta ay suurtagal noqoto. waxaa kaloo mahad celinaynaa dawladda Itoobiya iyo madaxdeeda gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa xafiisyadeeda oo dhan ha noqoto xafiiska ra'iisul wasaaraha ha noqdo xafiiska arrimaha dibadda. waxaa kaloo si gaar uga mahad celinaynaa maamulka dawladda ismaamulka Soomaaliyeed dalka Itoobiya gaar ahaan madaxweynahooda Cabdi Maxamed Cumar oo isagana ka qaatay qayb weyn iyo dadaal fara badan in la soo sii daayo. marka waxa weeye waa arrin aad iyo aad loogu farxi karo oo muxuu ahaa taabagal ah oo bilow ah xiriirkii ay labada dalna yani u noqonayso mid maanta bilow u ah oo laga arkayo in labada dal ay aad iyo aad isugu dhow yihiin Soomaaliya iyo Itoobiya. waana mid sii socon doonta haddii alla ilmaha oo dhinac kasta noqon doonto. marka waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeedna ay aad iyo aad yani ay u arkaan ay u dareemaan walaalnimada iyo wada shaqaynta u bilaabatay horeyna u jiri jirtay kana dhaxaysa labadeena wadan. insha Allah waxaan rajaynayaa in qaar kale oo iyagana wadamada kale ku xiran in sidoo kale iyagana muxuu ahaa halkan ay imaan doonaan ayagoo bad qabo nabad qaba
wixii ku haray hadday jiraan qaar kale Itoobiya ku harayna in ayagana sidoo kale ay imaan doonaan insha Allah. soo dhaweyn salaan iyo soorid kadibna dhalinyaradan ayaa loo galbiyay guri loogu talagalay iyagoo habeenka dib u helay hurdo ka maqnayd sanadaad fara badan. dharaartii xigtayna waxa uu galab jalbeebsaday ra'iisul wasaare Khayre kaasi oo dhalinyaradani waqti la soo qaatay. maxay tahay farxadda ka weyn inay dib isu helaan wiiliyo waalidkii cadowgu kala weeqay waaya badan. duco hooyo dardaaran iyo daljeclaasho ma yareen galabka dhalinyaradan. إلهه وحلك مقات إلهه لفضي إلهه كي خير إلهه البلد الحاضر إلهه سبحانه وتعالى من فتوغانه إلهي ديك dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo joogto dal iyo dibadda waxaan u gudbinayaa in qarannimadu waxa ay tahay la ogaado in la kala saaro gaar ahaan dhalinyarada gobolka Awdal ee waqooyiga Soomaaliya aan ka soo jeedo waxaan u gudbinayaa in la kala ogaado qabiilka iyo qarannimada dugsi male qabyaaladii waxay dumisay mooyaane anigu baad dinqanaya dhaguhu umadu leelaane bal inaan dareen qaba aqliga doonay laga saarka waa kuwa aan lahayn dux iyo iimaan waxa weeyaan haraadiga dalkeena la haray ee baabi'iyay ee alqushash ee waxa way dhibaatada noo keenay cadawga kaashanayo in aanu la dagaalano oo waxaanu diyaar u nahay aanu ka cirib jarno yaanu dagaal u nahay nin walba ina dalkiisa wax u dhaantay waxaan leeyahay markaa nin walba dalkaaga hooyo ku soo noqo wax ku dhaaba ma jiro wax macnaheedu maanta waa aragtaan anna wax maxabiis mineen waana la soo qaaday dawladda halkaasna keentay meesha doontaa wax ka cunaa bayna ilaa inta shaqo leedii qabanayana guri bayna siisay dhul bayna siisay waxayna daryeel bayna siisay waxay noo qabatay waxaan macnaheedu aan nafray inaan qabiilka dhaafno deregna aynu gaarno inaan qabiilka dhaafno deregna aynu gaarno cudurka aan dhammayno shanta in leysdhex keeno dhashoodu wada cayaarto shanta in leysdhex keeno gumaysiga ka dhowrno adduunkana u dhaxayno kadib kusoo guryo noqoshadoodii dalka waxay dibrarka uga fureen geedigii nolosha ee galay gooyaalka madow ay ku soo qaateen godadka mugdiga badan oo ay u dheerayd garaacis goosasho iyo goodinba waa guulo mahadii iyo wiilashan amintan waa kuwa laday guri walaal. dhismahani waa halkay ku xaraysan yihiin dhalinyaradani laga keenay Itoobiya ma ahan xabsi ay ku jiraan ee waa xarun ay xal sugayaal ku yihiin xukuumadda dhaxan ay ku ogtahay oo lagu xanaaneeyo. waxaa la yiraahdaa magacayga jaamac Dayib jaamac waxaan ahay dhalinyartii dhawaan laga keenay dalka Itoobiya haddana ku sugan dalkoogii hooyo gaar ahaan magaalada Muqdisho degmada Waaberi halkan waxaan u joognaa xaruntan waxaan u joognaa danaha iyaga maxaabiis kuma nihin si fiican baa gobolkana lagu soo dhaweeyay meel kasta oo aan tagnayna waa noo caleema lulaya
dhammaan waana la dalxiiskii meel aanaan tegin ma leh masaajidka isbaahisiga ciidii waan ku soo tukanay kullu caam wa antum bikhayr dadka waan la ciidnay waanu la qaadanay waanu la damaashaadnay xafladaha naloo dhigay waxaa ka mid ah badda liida oo nala geeyey hoteelka casuumadna loogu sameeyey waxaan taageernaa annagu degmada waa beri maadaama degmadoodii ka tirsannahay degmooyinkuna laakiin ay noo simin laakiin haddana khaasiyan waxaanu sii taageernaa degmada waa beri ciyaartii lugtii hore ee semifinalka waanu tagnay finaalkiina waa habeen dambe insha allah iyadana habeen dambe waa tegaynaa insha allah waxaanaan ku haweynahay inaanu guulaysano taageeradana waxaanu taageeraynaa hooyarooda waa hooyada keliyaata ee dhiiggeyga noo hurtay waxa aanu maanta ku dhaqdhaqaaqaynaa ee aanu ku soconnaa waxa weeyaan dhiigga hooyarooda waa hadiyad la isa siiyo hadiyadda u qaalisan ayayna siisay hooyarooda dhiigga iyo dhuuxa aan maanta ku soconno waxaa iska leh hooyarooda kolley maxaabiis minin kolley ninkii annaga maxaabiis noo isaga nasiib darro tahay waayo nin meeshuu doono tegaya oo tegaya meeshuu hoteele tegaya oo meeshuu doono tegaya inuusan maxbuus ahayn dadkoo dhan u arkaa aniguna naftayda ma hafrayo ma garanaysaa maxbuusnimo waan soo maray laakiin tan aan maanta arkayo maxbuusnimo ila maaha eheladaydii baa ii imanaysa qaraabadaydii baa ii imanaysa xaaskaygaan haddaan anigu baahdo u tegayaa reerkaygaan u tegayaa wax ay tahay oo maxaabiisa oo nahay ma jirto dadkayaga hooye dalkayaga hooye ayaan maanta joognaa wallaahi madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan cali khayre ciiltire iyo dayactire kulley ma ilaawi karno waa labada nin ee ummadda soomaaliyeed ciilkii ka saaray dayactirena wax alla waxaanu abaalkooga maanta ku gudi karno maanta soo koobi karno halkan ka odhan karnaa waan gudi karnaa ma jirto waxaanu leenahay dhalinyarta ee maxaabiista naga maqnaydna in saa iyo sileeg iyagana looga farxiyo kulley dawlado hore fara badan dadka way soo mareen waana la ogaanay dadka maqan yihiin cid u kacdina ma jiro dawladdu waa curdin bay ahayd maalintiina la keenay 5 bilood bay dhalanayd 5 bilood gudahood baa anaga laga soo saaray intii kalena waa noo soo socotaa habeen dhawid baa la ballan qaaday la kala saxiixday marka waxaan leeyahay dawladda dhalanayd 5 bilood nagala soo saartay gudoodka wax fara badan inay qabanaysan aaminsanahay waxaan leeyahay dad oo shacabkaygii Soomaaliyeed ha loo samro alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ma ba'd ilaahay baa maxad iska leh marka kood ilaahigi na keenay dalka Soomaaliyeed una caafimaad qabno xabsiyada naga soo saaray marka kood sugaa mahad leh mar labaad madaxweynaha dawladda Soomaaliyeed Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dawladda hukuumadda si u kala sareeyay si u kala hoosaytay ma sha Allah boqoltii 14 salaan ay mahad baan welinaya marka saddexaad alxamdulillahi rabbil alamin maanta dalkaana hooyaan joognaa farax baan ku jirnaa waa naga dhamaad la'ada dadka iid waa ka dhamaatay uma naga dhamaatay alxamdulillahi rabbil alamin ilaahay baa maxadaas kale nin xalay dhashay oo saaka marha 114 loo aqrinay baana unaga waaga hadda noo bariyay adduunyo hadda noo uwish aniga 7 sano habs ku jiray marka tira 40 waan tarinaya alxamdulillah maanta waxaan ku xisaabtamay 15 sano inaan jaro farxadda maanta aan u taaganahay oo dalka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed oo kamid ah baan la taaganahay alxamdulillah rabbil alamin horta waxaan rabnaa marka koowaad horta mustaqbal baan meesha u joognaa mustaqbal baan sugaynaa insha Allah billahi karim dawladda waa noo ballan qaaday mustaqbalkana baan sugaynaa insha Allah billahi karim mar dhow sano noo sheegay shaqo abuur in noo sameeyo wadankan hooyo aan ka shaqeysano wax ka soo saarano baan doonaynaa horumarka ka qayb qaadano aan doonaynaa number 1 baan ka madanahay sano ka xisaabtamayno insha Allah billahi karim magacayga Bishaar Ibrahim Balidaada dhalinyarada laga keenay Ethiopia aan ku jiray 7 sano ayaa xiranay waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u dirayaa inay iska daayaan dadka dariibayo dadka wadanka kale u baxayo dalkeen hooyo inay ku dhimataan ayaa farmiin u diraya fariintaas u diraya waan ka bahay waan asalaam Maxamed Qalin Cismaan waxaan ku bilaabayaa waxaan ka salaamayaa dhammaan mas'uuliyiinta ay ka mid yihiin madaxweynaha wasaaraha madaxweyne Cabdilaahi Farmaajo iyo wasaaraha Xasan Cali Khayre waxaan u jeedinayaa mahad aad iyo aad maadaama naga soo saareen dar shisheeye oo ah dalkaas soo dal shisheeye oo dariskeena ku xidhan muddo badan kolka waxaana wuxuu ilaahay iyaga noo soo diray maalmaha kamid ah halkaas noogu dalka waxaan u jeedinayaa aad iyo aad marka jooga mas'uuliyiintu waxaan u jeedinayaa mahad ka soo maadaama naga soo saareen god kolka mahadaas oo ah halka ka sii haya dadaalkiina dadaalaysaan waxaan leeyahay Soomaalida marka joogaanba waa waxa ku tala jirtaan arrin fiican halkaana kaga haya iyada waxaana kulli imika ku tala jiraa hawsha wada hawsha iyada waxay noo katay meesha shaqada maadaama soo naga dal shisheeye eegana waxay noogu maqan tahay shaqooyin iyo shaqo abuur si shaqooyin noogu sameeyay laakiin waxaan anu kula talay inay halkaan ka sii dadaalaan
ay dhammaan maxaabiistan meel kasta ku keenaan waxbarashadana sii xoojiyaan. taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa hadda gacanta ku haya nolosha dhalinyaradan. bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد marka hore waxaan u mahadcelinayaa Alle weyna waaxidka ahaa noo sababay inuu halkan caafimaad aan ku joogno oo dad walaalaheen ah oo ka soo baxay meel aad u dhib badan Ilaahay uu mataqaan noo qadar inaan la joogno Allah saan u mahadcelinayaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradaas aad tilmaantay inay ku jireen xabsigaas ee Itoobiya oo Ilaahay uu qadaray inay halkan yimaadaan qiimaha iyo qaabka ay nagula dhaqmeen booliis ahaan meesha hadda aan joogno waa saldhigga booliiska waa bari ee cusub ee ku yaalo jidka Vintuuna la yiraahdo ayuu ku yaalaa waa saldhigga booliiska nasiib wanaag sidaad ogsoontihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa weeye hooyadii ciidamada qalabka siday laakiin sanadahan dambe waxaan ku dhawaaqi karnaa inaan nahay hooyadii ummadda Soomaaliyeed sababtoo wiilashan ciidan ma aha waa wiilal Soomaaliyeed haddana Ilaahay wuxuu noo qadaray xaruntii saldhigga waa bari inay haddana Ilaahay uu mataqaana ii sheeg uu saldhig ooga dhigo oo ku waxaysnaa markaan ka soo warramo yacnaa xaaladda runtii waa xaalad oo dawladeennii oo mataqaana ii sheeg aad dhaqaale ahaan iska tabaryar ummadeennii oo mataqaana ii sheeg dagaalo iyo mataqaana dhaqaale xumo ka soo baxday aniga kulli shakhsiyan sidii aniga aan rabay weli ma aysan helin sidii aniga aan u rabay nimankaas ma aysan helin laakiin waxaan aaminsanahay sidii juhdiga ahayd oo xukuumadeennii iyo dawladeenna ay awoodeeda ahayd waxba lagama hagranin oo runtii yacnaha wixii wax hagara kama muuqato laakiin tabaryariyaa jirta tabaryaridana Soomaaliya xataa tabaryar iskuma naco marka barnaamijkaas isaga iyagana hadda waa muddo badan aan la joogay inta badan waa u badnaay waa niman iimaan ahaan u qanacsan oo mataqaana Soomaalinimo u qanacsan oo islaamnimo u qanacsan oo shakhsi ahaan u qanacsan saaka meeshan Ilaahay barar waay ku kaftamaynay waxaan niri say wax u jiraan markaas waxa la yiri Ilaahay barar waay wixii laga hadlay waxaan heenan rabnaa kala hadalno oo dawladda naga gaarsiisay maxaa waayaan waxa la Ilaahay barar waay markii hore intan mataqaana xabsi lagu jiray oo laga yaabo inuu raashin ku xumaayo waxa laga yaabo inuu aragtida maxay hadda raashin naga buuxiseen Ilaahay barar waay ilmihiina darbiga taagan la yiri marka waa niman damiirkood ilaa heerkaas aanan ku fikirin in ilmihoodii darbiga taagan xamar jooga inaysan marnaba haweysan laakiin waayeel warkiis kaftan ku dhameystaa xogaa kaftan la igu dhiibay laakiin ayadana xalan u helayna ilaa idinka insha Allah waatay maxaabiistii markii la keenay sida weyn waxay ilaa 112 maxbuus hadda waa mise tirada goobtan ku sugan sidoodii waay intii timid sidoodii u joogaan dad caafimaad ahaan mataqaana ii sheeg xanuunsanay ayagoo xanuunsanba ama daawo socotay yimid oo loo tixgeliyay moogiye waxa kale inta dhan waa wada joogaan waa diyaarsan yihiin waa gartay marka laga tago dadkaas xanuunsanaad ii sheegtay xabsi waan qiyaasi karnaa dhibaatadu uu leeyahay waliba xabsiyo Itoobiya oo kale dal aad u nidaam adag lagu tilmaamo ma jiraan dhibaatooyin jireed ama maskaxeed dhalinyaro qabay oo markii la keenay aad la kulanteen haddii ay si jiraan qaar ka soo kubsaday ma jiraan wallahi dhibka jiray wuxuu ahaay dhib xabsiyo ahaay dhibka xabsigana waa wax iska far badan waay arrintaas iyada ah waxaa runtii iska kaashaday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha degmada Waaberi iyo gobernatooraha iyo dhammaan mas'uuliyiinta gobolka oo degmooyin fara badan ay haysanayaan waxaan isla garanay in caafimaadka si gooni ah meel loogu caafimaad waxaan loo xil saaray gudoomiyaha degmada Waaberi oo ayaga Ilaahay barar waay nimankan ay u bixiyeen magacyo badan oo magaceeda wuxuu ah magaceeda rooda rakaroon iyo rooda mataqaana isag Soomaali iyo roon wadani iyo waxyaabo badan Ilaahay barar waa loo bixiyay waxaana wax iyada ay mataqaana ay sheekeensatay waay moogay wax iyada loo gartay ma ahayn marka caafimaadkooda wixii caafimaad ah baaritaan guud la sameeyay haddana baaritaan guud aan hadda la sameeynaya Abdullaahi yiraahdo insha Allah markaasaan ogaanaynaa wixii dhibaato oo khaas oo jira gadaal ka tagto caadi waay dhalinyaradan ayagoo ku xamdinaya xag Alle kadibna xukuumadooda ay mar kale u xusul duubayaan inay boorka ka jafaan noloshoodii halista gashay oo hogga habar dugaag laga soo hoos qaaday
haddaba yaa iska kaashanaya maareynta noloshooda waqtigan. hore waan salaamayaa baxda saxaafadda waad ku mahadsantahiin inaad nagu soo booqateen degmada marka xig waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed ee qaaday tilaabo aad iyo aad wadanka muhiim ugu ah oo in dhalinyaradaas la soo celiyo oo wadankoodii la keeno ma qiyaasi kartid dhalinyaradaas farxadda iyo himilada ay wadanka u qabaan ama se Soomaalinimada ku jirto iyo wadanimada ku jirto anaga maamulka degmada waa bari hadaan nahay doorka nooga aadan dhalinyaradan waxay noqotay dhalinyaradii waxa la keenay meel cusub oo maxaa loogu talagalay in ay saldhig noqoto laakiin si wali aan saldhig laga dhiginin meesha marka hooy ahaan bay u joogaan oo ma ahan meel dad lagu xiro waxay ahayd meel loo diyaariyay in saldhigga waa bari cusub uu noqdo laakiin si hooyigoodii looga dhigay kadibna markii dhalinyarada la keenay maamul ahaan waxa xil naga saaran yahay in aan dadka soo degmada iyo xalkooda iyo kulli ka warqabno markaan ogaanay inay dhalinyarada joogaan meesha waxaan la xiriirnay gobolka Banaadir aan la xiriirnay sidii baan anaga iyo maamulka gobolka Banaadir iskaga kaashanay in dhalinyaradaas waxyaabaha ay u baahan yihiin ama cuntadooda ha ahaato ama se cabashadooda ha ahaato ama se caafimaad haday u baahan yihiin oo kale degmadii ay noqoto meesha ugu horeyso oo arintaas ay ka heli karaan maamulka noocaas oo kale sidaas ayaan door ahaan anaga u qaadanay oo aan arintaas ayaan hadeer ilaa hadda aan wadnaa in qada iyo quraacyo cashadooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo dhan ay degmada ka caawiso iyadoo la kaashanayso gobolka Banaadir gobolka Banaadirna aad iyo aad ay arintan uga qayb qaateen oo gudoomiyaha gobolka mar walba ayaan ka wada hadalnaa qorshahooda iyo waxyaabaha laga sameyn karo dhalinyaradan. waayaha nolosha ee xiriirka ayaa qora bilaa qalin xasuuso mahadha qof walbana qalbigiisa u budriga maalmaha madow iyo cadaan bale ee noloshiisa soo mara sheeko madaxaaga ka weyn oo murugo badan ayay noqonaysaa marka aad maqasho dhalinyaradan qaar muddooyinka xukun la-aanta xabsiyada ay ku jireen. cadow kuuma ciidamiyey dhalashadu cudoona ninna sidan ayuu xero isugu keenay uu ku xanaashay ninna xabsi ayuu ku albaabay oo xorriyadoodii ka qaaday inay Soomaali yihiin inaad Soomaali tahay inaan Soomaali ahay inaan Soomaalinahay waa dareenka kaliya ee aan daawada isaga damuqano isagana dirnaxno isagana dhownahay dhammaan dadyoga kale ee caalamka xaqiiqiyan dunidu nama kala jecla sidan ayay una xabisi doontaa inta dhexdeena ay taalla aragtida duugowday ee kala qoqobnaanta waa inaan taageernaa midkeena guulaystay waa inaan dhiirigelinaa midkeena guuldaraystay waa in aan ka dharagnaa qaraarka iyo qax intana gaaray waa inay nagu filnaataa burburka iyo baabaa intana soo maray danta guud markaaad ka shaqayso ayaad si fudud ku helaysaa danta gaarka ah. goorma ay dib ula midoobayaan reerahoodii ay kala raageen waatan gudoomiyaha waabari oo kamid ah mas'uuliyiinta gacanta ku haya nolosha dhalinyaradan taasi oo ka xog waramaysa.
waqti ahaan kuleyba ma mudayn karo laakiin waxaan ogahay dadaalo in loogu jiro oo gobolka Banaadir ay ugu jiraan in ay arintaas ay fududeeyaan oo ay ogaadaan inta muddada ay qaadanayso kuleyba dadkii waa u imaadaan eheladoodii ka qaybgalkii bulshada way ka qayb qaataan laakiin waxaa loo baahan yahay kaliya oo ay dawladda sugaysaa in aysan noqon dad inta garoonka laga soo dejiyo la yiraahdo qof walba danayso oo aysan dadkii meel cidla ku soo dhicinin baahiyo kala gaar ah ay qabaan oo kala duwan in baahiyahooda gaarka ah xog dhaba laga helo kadibna qof walba meeshii ku haboon qofkii raba inay dawladdu marka sii gacan qabato iyo qof aan rabin oo waxaa jiro horay inuu ka shaqo gal rabo oo shaqada eheladiisa ay u diyaarsadeen sidaas kadibna markaas loo kala maareeyo laakiin hadda waxa ay meesha u joogaan waxay tahay kaliya in la ogaado baahiyaha gaarka ah ee u kala baahan yihiin marka laga tago dhalinyaradan waxaa xaqiiqada daawada inay jiraan Soomaali badan oo ku qurmay xabsiyada qalaad kuwaas oo u xiisay qooraansiga muuqaalka qorraxda oo maalmo badan inay nishoodu qaban marka laga tago dhalinyaradan waxaa xaqiiqada daawada inay jiraan Soomaali badan oo ku qurmay xabsiyada qalaad kuwaas oo qaarkood qoysaskoodii gaari ay ku tiriyeen nafan bixin joogin ay ku jirta oo xabsiyada ku qafilan xaqiiqada daawada inay jiraan Soomaali badan oo ku qurmay xabsiyada qalaad kuwaas oo saaxiibkooda qaaliga ay ku barteen qololka cariiriga ay tahay kan qof walba uu necab yahay ee mugdi xaqiiqada daawada inay jiraan Soomaali badan oo ku qurmay xabsiyada qalaad kuwaas oo shaqada kaliya oo ay qabtaan indhahooda ay tahay soo qufida ilmo qoysa laabtooda ugu dambeyn waxaa xaqiiqada daawada inay jiraan Soomaali badan oo ku qurmay xabsiyada qalaad kuwaas oo ka haray qabarka dunida waliba aan haysan safiir u qeelsho oo qaramada dacweeya qareen u dooda oo qolalka ka daaya maxkamad qorshaysan oo qisadood ka dooda kuwa aan sugayn qabiilkooda balse sugaya qaranka fadlan qabiilka ku bedel qaran isaga ayaana deeqay